labadii gabdhood ee 3 jirka iyo 9 jirka ahaayeen mid ayay waxay ugu tuurtay dabaqa meesha ugu koreyso satoox, yani meesha ugu koreyso la koro ayay midba intay saartay mid yara torto saan leh u riixday way ka tuurtay way dhacday dhulka markay tagtay miida ahayd. midda 9 jirkana wuu u fikirtay waxay jirtan ma riixi kartid xoogay leedahay waa 9 jire maxaa ku samaysaa afkay mara ugu qabatay waa ku qabatay xoogay u sheegatay gabadha iyadoo fadhido filinaynin ilaa ay ka dhimato. markay dhimatay way qaaday satooxii meeshii gabadha walaasheed ay ka tuurtay ayadana ka tuurtay. labada gabdhood saasay ku dhinteen. dadka waxay u maleeyaan gabdhaha yararka inay satoox inta soo koreen ayaga ka soo dhaceen inta meesha ku ciyaarayeen ay ka soo dhaceen, laakiin saas maaha. dhakhtarkii markuu baaray gabadhii weyneed dhantii yareed waa la ogolaaday, tii weyneed markuu baaray waxaa u soo baxday in gabadhan afka mara laga saaray ee lagu celiyay ilaa neefta ilaa ay ka dhimato. marka yaa dili waayo waxaa dishay eedadood aabahood qabay. qisadan bilowgeed ilaa dhimadkeedna dhegeysanay nakeeya insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qisadan maanta waxay ku socotaa aabahan waxaan dhihi lahay aabo aad iyo aad u fiican waay. aabayaasha ayagoo dhan inta xataa aabo xun ma jirtee yaa inta xataa xoogaa qalifsan xataa asagoo kale allah ka dhigo oo walaadiisa mar walbo waardiinay og. inkastoo shaytaanka haddii guriga uu keensada xataa shaytaan ku noqonaysa naagaha qaarkood ilaahay iigane maxaa la dhihi jira xaqa allaha tusiyo. marka aabahan 2 gabdhood yararka u dhalay waa 3 jir iyo 9 jir. xaaskiisa waxay dhimatay gabadhan yar 3 jirka ah markay dhashay ayay umul raacatay. subxaan allah. kadib wuxuu isku dayay inuu gabdhihiisii korsado uusan u keeninbo wax la yiraahdo eedo uusan guriga u keeninbo. markuu gabadhihii 3 sano iyo 9 sano ay kala gaareen wuxuu is yiri gabdhahan kulley wax timaha u sameeyo iyo u baahan yihiin intaas soo wadoday amaad guursataa. wuxuu raadiyay xaas raadis oo kale soo raadinay xaaska u raadinay. marka waxa waaye sideedaba xaaska asaga u raadin waa tilmaamay u leedahay asaga camal wuxuu rabiyaa yani midoo tilmaansada u leeyahay midan waa mid degan mid ilmahaaga dhaqaaleyn karto gabdhahaaga dilaynin rafaadinin ogaanus. adiga wuxuu helay xaas degan oo fiican oo nabad qabto. xaaska markuu u keenay gabdhihii la joogtay marka midda yar allah dhaafay markay ilmaha 3 jir iyo 4 jir yihiin waa markay ugu qalqaali yihiin ugu badan yihiin orodka socodka boodboodka hadalka markaas waa ilaa ay ka gaaraan 6 sano yani saasay ku soconayaan. siiba gabdhaha waxa waaye wiilashan way yihiin laakiin gabdhaha waxay ku darsadeen wiilashu waa iska ordaan waa boodboodan laakiin gabdhaha waxay ku darsadeen tii hadal ahayd. marka hooyadii dhashay lekuron inay haysato waxay samaysay maalmaha ka mid ah markay muddo la joogtay midda yareed ayay qabatay baaxin naga fariisay tiri baaxin 2 xabo islahayn ee u gudis gabadhi. ilmo mayac laga badiyo waaye aabahood lama taabtaan ka dhigay. ayeedood markay is arkeen gabadhi yareed waxay tiri ayeeyo eedo way dishay suxuna iyo dharbaxshaysa 2 dharbaxin iyo gudis. waxay tiri aabaha markuu yimaado u sheeg asaa idin keenay waa ayeedi misad ilaa maxay ka qaban kartaa. markuu yimid aabihii midda yareed waxa waaye waa midda uu jeclaayo la sheekaysan jiray ag fadhiistay waxay tiri aaba ma ogtay tirmaan eedo waxay tiri 2 dharbaxin aan islahayn ay gudisay tiri naga fadhiisay tiri balaayihii oo saas ahaa inta u tagay 2 dharbaxin oo horta macaankeed tusi markuu kala gadiyo yiri xanuunkeed maxay igu dishay xanuunkeed maartaa waa inta yar aad ku dhufatay gabadheeda haddaad mar dambe korkooda aad taabatid ogow. shibay tiri masaasay tiraa shibay dhahdo waa u aamusta 2 maalmood oo aamusay. marka maalin saddexaad u fikirtay shaytaan maskaxdeeda fikrad shaytaan ku soo wareegsaday. waxay tiri haddii dishiday tiri horta midaan yaro dhibka badan leh ku dhaafayso haa satooxay kortay gabadheeda ilmaha waa daba socota waa daba kortay. markay daba raacday satooxan si fiican uma dhisno marka darbiye waaweyn oo kor u qaadan kuma dhisno waa darbiye ka kaaban. cunugta yareed markay meelihii u dhawaatay ee xeertu u dhawaatay
gacanta inta ku siriixay eedadii xaasisana subxaan allah gacanta jog inta ku siis ee gabadhi Satuuxi ka dhacday dadka hoos joogeen waxay arkeen qofna ina meesha saarneen gabadhi ilmo waayo gorba meesha ku dheelaysa isneen ay kasoo dhacday dhulka lama tegin ayadoo nool way dhimatay nabadii marka ay sida yeeshay ayay saas ku dhimatay oo dadku isku yimideen aabihii yimid gabadhi ambalaas uu qaaday la fiiri inay dhimatay walaalina aamin oo loo ooy waa la duugay haddana waxay istiri tii horta u dhamaysay tanna say ugu dhamaysaa sababto iyadana aabaheeda kugu diray wajimo leh sababa ninkan ani kaliga igu helo maxaan ku sameeyaa oo fikirta waxay istiri haddaan waday tiri oo Satuuxa geeyay tiri mariix kale waa la dagaalay oo qof xoog la waa 9 sano jirta كوري هدي لعل أي نقطة تريدو هدي أن ريدني تريدو نولي تري يعني أنا ريد لوك كل عضني وحالة يابا إني بتبهدل وهدو دي كوم إنت كشكا سوكعلو إيش يكتو بالمالك فكرة سفيريا مركز هي شاملك هي سواق بطي مرة قبل يو اسكفر دو تي في اسكفر سنة انت قداش الصوفر يستي اي مرة انتو قبط حوق لبضي هذا كعمود اي نافتا كل جيسي مركز نافتا كل جيسي قبل نفت إلا إيكا بحث مسيدين gabadhi markay nafta ay ka baxday ay sii deysay ay dhimatay ay ogaatay inay dhimatay inta qaaday ee balakoonka geysay ee daldalaysay ka tuurtay idan markaad dab dhulka dadkii meelaha deganaa diris way yaabeen xisnay ilmahan maxaa mid ugu soo riday Satuuxan ambalaaska la wacay abiya la wacay wixii la qaaday booliis wixii soo baarana waa la baaray marka dhakhtarkii baaray wuxuu soo sheegay gabadhan intaysan la soo tuurin ka hor in la dilay ay dhimatay qof dhimatay ahayd ee la eejiyay neefta lagu dhijiyay dhunteedna xarig ma lahan neefta lagu dhijiyo marka neefta ku dhigtay ay dhimatayna ka bacdi Satuuxa laga soo tuuray laana marka Satuuxa laga soo tuuray meeday ahayd gabadhi yareed kaleetana iyada masaasay ku dishwaa gabadhi yareed haddana dib loogu noqday qabrigeeda waa la baaray ilaa dumar wax baaristimaada la wada baaraa leh haddii la baraa in waxaa la ogaaday in meesha laga soo tuuray leh maxaa labadan isla kulmiyo hal meel ka soo wada tuuray yaa ka soo tuuray marka eedadii aabihi qaba ayada la soo qabtay booliiska la keenay adaa dishaadis waxaa shay gabadha weyn neeftina ku dhis oo dis cadeena lagu hayaa qarsan ma jiro waxay tiri qaati billaah qadeena ka tagnaa siiba midda yareeyay midda weyn maxaa u dishay midda weyn maxaa u diray tiri ayadana sidii midda yaroo kaleeto ee jidkeeda maray say maanta dhan aabaheedii dirihii hayna marka diraha inuu idhaafo oo odayga kaliga ii helo aan go'aan sidii tiri maadaama midda yareed aan dil midda weyneed aan ka taqaluso saasaan ugu dhimayay tiri haddii adigana waajibkaaga qaadani waa aabihi wuxuu go'aan ku gaaray wuxuu yidhi san layn gabdhaheygii way dishay naftay ka qaaday ayadana waa inaan nafta laga qaadaa aabihi saas wuxuu ku noqday hooyadood marar waayay waqtigeedii dhammaado iska dhimatay labadii gabdhoodna asaga naago gacantiisa ku keensaday ay dishay inkastoo asaga jeclaay oo korkooda dhib u quureen oo dhibaato u quureen haddana waxaa la rabay ilaa ay ku xoogeystaan ee 15 jiro ka gaaraan inuu iska deysto 15 jiro mar haddii gaaraan waa naago waaweyn oo qaangaar ah xoog leh qofna wax kuma samayn karto kulay hadday dhibsadaan way iska tegi lahaayeen waxay aadi lahaayeen eeyadood iyo adeeradood iyo abtiyaalkood iyo meel uun iska aadi lahaayeen laakiin ilmo yar waxay sheegi kaana mala xoog male marka ilmaha intaysan ku xoogeysanayaan sabar yeesh aysan ahayn waxaa waaye kala dhaqaajiya ilmihiina gooni dejiya naagtaa gursatiina gooni dejiya ilan waxba maba joogaysin xaalkaa sida se ilmahan masaakiintana dhibaato usoo gaarin taasaa guran walba ayeedo tadaa la dejiya axsan ayey waa ayey ma taabanaysa mana dilays mana rafaadinaysa indheheeday kala jeceshahay maxaa yeelay waalidka sideedaba hore wuxuu u tiri Soomaali kuma maadaa waxaa dhashid kuma dhalin waxaa dhashidna ayooyinku xariiri waxay dhalaan waxay dhaleen maan waxay sii dhaleen ay ka jecel yihiin marka saas ay noqoto waalidka waayeelka abaroonba in lagu dhaafo intii eeda lagu dhaafi lahaa waxaan dhihi lahaa ayay ha lagu dhaafo maxaa yeelay eeda waxa waaye fikirdeeda waxay ku xisaabtamaysaa shaytaanka laba galaayo inkastoo mid khayr qabta ay ku jirto oo ilaahay ka cabsanayso alla cabsiga la ka doo dhamaado shaytaan kula xiriiro waxa xaribta sameeyay qofkan wuxuu yahay shay kale daaqalkeeda gudaheeda qof og ma lahan Allah subhanahu wa ta'ala la ikhtalo shay ka tamajirto marka ana waxaan dhihi lahaa gabdhaha ilmaha gabdhahaada wiilaha ilaa ay ku xoogeystaan u kaadi haddii suu karna ayeedo guri ula deji
biilku si ku ogow xaaskaagan guurso gurigeeda deji wax kale ma jiro ilaa adaa tiri waxba guursanaa marka qisada maanta insha allah taas u egtaa waxaan idin leeyahay share like subscribe insha allah naga iloobina kambalaalka furta sida qiso walbo idin soo gaarto waxaan idinkaga tagay caafimaad bash barwaaqo nabadey asalaamu calaykum